السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wareeg shacabka YouTube-ka aniguna waa Abdulqaadir Xasan Duli. Is arag wanaagsan maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa fiisaha Shanghai. Dad badan ayaa markaa fiisahan iga soo weydiiyay su'aalo. Haddaba fiisahan ayaan waxaan ku sameeyay tixraac aad u dheer ayaan ku sameeyay. Halkan ayaan idin kala wadaagayaa fiisahan qaabka lagu xareysto, shuruudda, meelaha laga xareysto, qofka maxaa looga baahan yahay, qarashkiisa, qofka diidmo ma la siin karaa, waqtiga, dhammaan warbixintan oo dhammaystiran ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa. Muuqaalkan wax laga yaabaa inuu dheeraado. Haddaba ka raali noqda haddii uu muuqaalkan dheeraado, laakiin wax laga yaabaa haddaad fiisahan doonaysid in markaa wax badan aad muuqaalkan ka faa'iidid. Haddaba marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay soo dhawow YouTube-ka subscribe inoo saar. Waa inoo muhiim waana inoo dhiirigelin. Adigana waad ku mahadsantahay waqti badanna kaagama baxayo. Sidoo kale muuqaalka laagtan inoo saar. waxaan halkaa mahad gaar uga celinayaa asxaabta sharafta mudan ee mar walba muuqaalka laagta inoo saarta, sidoo kale fikirkoodan hoos nugula wadaaga. Su'aalaha qaar aad isoo weydiisiin waxa laga yaabaa inay u adkaadaan, marka taas ayaa keentay marmarka qaar inaan su'aalihiin aan ka soo jawaabi waayo. Haddaba muuqaalka ayaan sii qaadaa dhigi doonaa. sida halkan ka arkaysiin halkan iga dambaysa warbixintan waxaan si toos uga soo xiginayaa website-ka European Communication ayaan si toos uga soo xiganaya oo ay warbixintan ku qoran tahay. Asaga ayaa markaasi qeexi doona fiisaha Shanghai iyo waxa uu yahay, sida lagu xareysto, shuruudaha dadka laga rabo. Qolooyinka aad ka doonaysid ama is leedahay fiisahan way ku xareyn karaan, wax laga yaabaa inay warbixin qaldan ku siiyaan. Marka halkan waxaad ugu imaanaysaa warbixin sax ah oo xaqiiq ku saabsan oo aan ka soo xiganayo mar walba meelaha markaasi warbixintan ay qusayso, taas oo aan shaki lahayn. Haddaba waa maxay fiisaha Shanghai? Haddii aad maqashay fiisahan, dalku galka Shanghai waa ogolaansho gelitaan muddo kooban, booqasho ku meel gaar ah oo ilaa iyo 90 maalmood ah, 180 maalmood kasta. sidaas inaad u fahantid ayaan ka rabaa. dalku galka Shanghai waxaa laga heli karaa qaab dalku gal ah oo kaliya, kaasi oo u ogolaanaya qofka haysta inuu galo aaga Shanghai hal mar, ama fiisaha gelitaanka badan, kaasi oo la ogol yahay booqashada badan oo Shanghai ah ilaa inta uu sax yahay. fiisahan waxaa la ogol yahay in marka hal mara aad Shanghai aad ku tagtid wadan kamid ah ama wadamo badan aad ku tagtid. way sii soconaysaa warbixinta. waxay leedahay xisaabiyaha fiisaha joogitaanka aagan waxaa loo isticmaali karaa xisaabinta inta ka hartay joogitaankaaga la ogol yahay. hagaha adeegaha ayaa ka caawin doona inaad ku dhex socotid xisaabiyahan oo leh tilaabo iyo tusaalooyin wax ku gal ah. warbixinta way sii soconaysaa. fiisaha gaadiidka madaarku waxa uu ogolaanayaa qofka haysta in uu ku xidho aag transfer ah oo caalamiga ah madaarka aaga Shanghai inta lagu jiro joogitaanka ama isbedelka duulimaadka. dalku galkani ma ogolaanaya in qofka haysta uu tago aaga caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha. haddaad fiisahan haysatid oo aad macnaha wadan transfer ku tahay, wadankii lagu talagalay oo fiisihiisa aad wadatana aad gaarin, ma lagu ogolaanayo inaad airport-ka ama meesha transferka ku tahay aad ka baxdid oo meel kale aad tagtid. si gaar ah ayaa lagu ilaalinayaa. waad fahantaan u maleynaa dad badan oo dhahay haddii aan fiisaha wato oo wadankaas aan tago ma ka dhuuman karaa. waa fahanteen u maleynaa. yaa u baahan inuu codsado fiisaha Shanghai? qofka doonaya ama qofka u baahan ugaakee ee doonaya fiisaha Shanghai. qaar ka mid ah muwaadiniinta aan Orobiyahanka ahayn waa inay haystaan fiisaha joogitaanka gaaban markii ay u safrayaan aaga Shanghai. qofku hadduusan wadamadan Euro la isku yiraahdo ama EU la isku yiraahdo oo Eurobiyaanka ah hadduusan ahayn waa inuu haystaa fiisahan Shanghai. midowga Yurub waxa uu leeyahay liis ay wadaagaan dalalka muwaadiniintooda looga baahan yahay inay haystaan fiisahan markii ay u gudbayaan xuduudda dibadda. macnaha waxay leeyihiin wadamada Yurub
meel ka wada dhaxayso oo ku ogaanayaan qofka fiisahan haysta markii uu doonayo inuu macnaha ama airportka ka baxo ama wadan kala tagayo. warbixinta marka waxaan u fahmay control zaa'id qofka in la saarayo markii uu magaalada dhaxmarayo oo uu doonayo macnaha tareenada iyo inuu isku bedesho kale oo laga yaabo in la weydiiyo qolooyinka controlka ay weydiiyaan halkee laga dalban karaa fiisahan Shanghai. waa warbixinteena waxba ugu muhiimsan halka laga dalban karo. hadda waxaan soo ogaanay fiisahan yaa qaadan karo qofka maxaa laga doonayaa meelaha transferka iyo waxyaabahaas oo dhan maxaa marka la weydiinayo dhan ayaan soo ogaanay. haddana waxaan halkan aan uga hadlaynaa yaa dalban kara. waa inaad ka xareysataa codsiga fiisaha Shanghai qunsuliyadda dalka aad doonaysid inaad booqato. haddaba waad fahantay fiisahan waxaad ka xareysan kartaa qunsuliyadda ama safaaradda wadanka aad doonaysid inaad booqatid ayaad ka xareysan kartaa. haddii aad rabto inaad booqato in ka badan hal gobol oo Shanghai ah waa inaad ka codsataa qunsuliyadda dalka halkaasi oo aad ka qaadan doonto waqtiga ugu dheer. macnaha haddii aad doonaysid inaad wadamo badan booqato waa inaad qunsuliyadaas ama safaaraddaas aad ka qaadataa waqti dheer oo aad markaa ku doonaysid wadamadaas inaad booqatid. haddii aad damacsan tahay in aad booqato dhowr gobol oo Shanghai ah oo joogisyadu ay noqon doonaan kuwo siman waa inaad ka codsataa qunsuliyadda dalka ugu horeeya ee aad booqan doonto. haddii aad doonaysid wadamo kale inaad booqatid waa in qunsuliyadda markaasi aad ka xareysanaysid warbixintaada markay ku xareysato aad wadanka aad booqanaysid waa inaad u sheegtaa macnaha inaad doonaysid maalin halkan inaad joogtid maalin kale halkaas inaad joogtid maalin kale halkaas joogtid wadamadaas. sida caadiga ah waa inaad qunsuliyadda ka codsataa fiisaha Shanghai oo leh awoodda dhuleed dalka aad sida sharciga u degan tahay. halkaasi waxaan uga soo baxnay halkee laga dalban karaa fiisaha Shanghai. haddana waxaan guda galaynaa goorme ayaa la dalbadaa fiisaha Shanghai. codsigaaga waa in loo gudbiyaa qunsuliyadda ugu yaraan 15 maalmood ka hor safarka loogu talagalay mana la xareyn karo ka hor 6 bilood ka hor bilowga safarkaaga loogu talagalay. waxaa laga yaabaa inaad ballan qabsato ka hor intaadan xareynin codsigaaga. inaad fahanteen aan u maleynayo waa af Soomaali. haddana waxaan guda galayaa waa maxay dukumentiyada looga baahan yahay si loo xareysto. qofka macnaha maxay tahay dukumentiyada looga baahan yahay si uu u xareysto fiisaha Shanghai. baasaboor sax ah taariikhdiisa dhicitaankana baasaboorka waa in ay ahaataa ugu yaraan mar walba baasaboorkaagu waa in uu macnaha xilliga taariikhdiisu ay ka dhiman tahay 3 bilood markaad safarkaaga soo gabagabayso ama safarkaaga ha dheeraado ama ha gaabto. sidaas inaad u fahantaan ka rabaa. foomka codsiga fiisaha lagu sheegay hadda sawir waafaqsan caymis caafimaad ee daboolaya caafimaadkaaga degdega ah isbitaalka dhigista iyo dib u celinta ay ku xiran tahay xaaladda caafimaad. dukumentiyada taageeraya ee la xiriira ujeedka joogitaankaaga caddeyntaada dhaqaalaha intii aad joogto hooygaaga iyo doonistaada inaad ku noqoto dalkaagii markaad joogtid kadib. farahaaga waxaa laga qaadi doonaa markii aad soo gudbiso codsigaaga. macnaha waxaa laga yaabaa faraha in laga dhaafo haddii si gaar uu qofku u codsado. dukumentiyo dheeraad ah ayay codsan kartaa qunsuliyadda oo ay ku weydiin kartaa. haddana waxaan guda galayaa waa imisa qiimaha fiisaha. 80 dadka waaweyn waa $80 ama €80 dadka waaweyn. 40 loogu talagalay caruurta da'doodu tahay 6 ilaa 12 sano. macnaha ilmaha da'doodu jirto 6 ilaa 12 sano €40 ayaa laga qaadaya. ina fahantaa u maleynaya waa lacag aad u yar runtii. dadka qaar lacag aad u badan ku bixiyaan. 35 codsadayaasha ka yimid Armenia, Azerbaijan iyo Belarus. macnaha dadka wadamadaas ka yimid waxa laga qaadaya €35 ayaa laga qaadaya. lacag dheeraad ah ayaa laga yaabaa in ay ku jirto haddii aad dhex marto xarumaha adeega fiisaha kuwaasi oo
aruuriyo codsadayaasha wakiilada qunsuliyadaha xaaladaha qaarkood. macnaha waxa laga yaabaa lacag qaar in lagu saarto oo lacag saas u badanna ma ahan kuwaas oo ku jira macnaha inta la aruurinayo fiisiyaasha iyo waxyaabahaas adigu meelaha isdabamarinta camal u waayo, laakiin lacag saa u badan ma aha. lacagta fiisaha waa laga dhaafi karaa qaybaha qaarkood ee codsadayaasha. macnaha dadka qaar waxa laga yaabaa lacagta fiisaha oo dhanba in laga dhaafo. waqtiyada habboon ee codsadaha, waqtiyada habboon ee macnaha la xareysto ama codsiyada uu xareysto. waqtiyada habboon ee codsadaha waa 15 maalmood. muddadani waxaa la kordhin karaa ilaa 45 maalmood ayaa laga dhigi karaa macnaha haddii loo baahdo baaritaano faahfaahsan oo ku saabsan codsadaha iyo ama dukumentiyada dheeraadka ah. 15 maalmood ayaa lagu codsan karaa, laakiin inta barnaamijka la wado oo dukumentiyada dheeraad qofka la weydiinayo 45 maalmood ayaa laga yaabaa inay noqoto. go-aanka diidmada fiisaha Shanghai iyo sababaha diidmada waxaa loo gudbiyaa codsadaha iyadoo la isticmaalayo foom caadi ah. go-aanka diidmada bixinta fiisaha waxaa ka mid ah sababaha diidmada lagu saleeyay iyo nidaamka iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee gudbinta racfaanka. macnaha haddii lagu diido ama diidmo qofka la siiyo waxa loo diraa warqad cadeynaysa sababta qofkan loogu diiday, waxaana ku qoran macnaha waxyaabaha lagu diiday marka aad sababta ayaa ku qoran. marka waxa laga rabaa inaad macnaha racfaan ka qaadato oo sidaas aad ku samaysid. haddaba muuqaalkayga maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaya oo aan uga hadlay waqti badan nooga baxay waa maxay fiisaha Shanghai, sababaha macnaha lagu xareysto, shuruudaha qofka laga rabo, lacagaha macnaha lagu xareysto fiisaha iyo waxyaabo kala duwan oo markaas ku saabsan fiisahan. warbixin dhameystiran ayaan halkan idin kala wadaagay. muuqaalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. inta muuqaalo kale oo xiiso leh ku kulmi doono waa saaxiibkiin oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.